بسم الله الرحمن الرحيم wax ka barano weydiintana what is interest rate ama dulsaarka waxaa lagu qeexi karaa in uu yahay qarashka aad ku daysanaysid lacagta si kale haddaan u dhigno waa lacagta dheeraadka ah oo laga rabo in uu bixiyo qofka deynta qaadanaya si loo siiyo deynta haddaba si aan u fahanno qeexidan aan isla aragno tusaalahan aan dhahno macmiil ayaa waxa uu rabaa in uu deynsado lacag dhan $1,000 bangiga si uu deynta u siiyo macmiilka waxa uu lacagta ku kireynayaa ama dulsaarkeedu yahay 10%. muddada deynta uu rabo inuu macmiilku qaatana waa sanad aan aragno markan xogta aan ka soo dhax saarnay tusaalahan kow waxaa inoogu astaysan ama ku calaamadaysan principal waana lacagta asalka ah oo macmiilku rabo inuu qaato 2 interest rate waana dulsaarka dheeriga ah ama 100% inta uu rabo inuu bangigu ku kireeyo lacagta 3 duration waana muddada lacagta la amaahinayo macmiilka haddaan fahanay intaas aan aragno lacagta dheeriga ee macmiilka uu bixinayo dhamaadka muddada marka la gaaro dhamaadka sanadka waxaa laga rabaa macmiilka in uu bixiyo $1,100 kunka waa lacagtii amaahda ahayd ee bal aan fahanno sida lagu soo dhiraandhiriyey $100 ee dheeriga haddaan xasuusanno tusaalaheennii bangiga waxa uu ka rabaa macmiilka 10%. haddaanu marka ka saarno percentageka oo aan ka dhigno decimal waxa ay noqonaysaa eber dhibic hal markaa kadibna aan ku dhufanno lacagtii deynta ahayd ee $1,000 waxa ay noo soo baxaysa $100 aadba hadda dhegaysanaya isku dhufashadan ku tijaabi calculatorka marka lacagta dheeriga ah ee ka baxsan $1,000 ee asalka ahayd ee noqonaysa 100 ayaa loo yaqaanaa interest rate ama dulsaar xog dheeraad ah oo ku saabsan qeexidda financial institutions ka dhegayso lifaaqa hoose oo aan hadda ka hor kaga soo hadalnay mahadsanidin waa inuu markale haddii rabigo